Bismillahirrahmanirrahiim wararka bogga Ruunirgood media aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Al-shabaab oo dadka degmada Ruunirgood dhammaan ku soo rogay lacaga ay ku sheegeen $30. Al-shabaab ayaa markay xilka ka qaadeen gudoomiyihii u qaabishanay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galguduud magacaabay gudoomiye cusub magaciisana aan weli lahayn. Gudoomiyaha cusub degmada Ruunirgood loo magacaabay oo shaqadiisu ayna dardar ku socon. Dadka deegaanka beedka Ruunirgood media dadka deegaanka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud oo si wadajir u sheegay inay gudoomiyaha cusub hadda la magacaabay ay la qabsan dooneen una u roonay kii hore oo ahay nin deegaanka u dhashay. Wararka kalena waxaa ka mid ah Turkiga oo samaysanaya bamkii ugu cuslay kadib markii xiisadda badda militariga ay ku cuslaatay inay wadanka Ugariga ay la dagaashanyihiin ee heer Yurubna gadaal ka riixayaan. Bamkan ayuu sheegay inuu ku qarxi doono markii fooda la askaray bamkana oo baabi'i kara ku dhawaad 2 bilyan oo qofood. Asxaabta beedka Ruunirgood media ku xiran fadlan booqda YouTube-ka Ruunirgood media share and dhaha shabakadaasna saara faafiinana bara saaxiibada weli u gaarin beedkan.